السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرفت له oo Soomaaliyeed meel ka joogto waa idin salaamay inta yaroon socdo waxaan rabaa inaan la qaybsado arrin yaroon isleey ummadda Soomaaliya ma wax un laga bedelaa waxa weeye gabadhan Soomaaliyeed ayaan la kulmay gabadhan nin baa guursaday iyadoo garoob ah waxay wadatay laba caruur ah afar ay u dhashay lix wey meeshaas gabadhan markii cabaar ka soo wareegtay afar ninka u dhashay ninka asaga ah walaalaha sharafta leh markii dambe waa la isgafay suuqiisa xulay dee waa iska ogtihiin runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado raggeena Soomaali in mataqaana biilka lagu lahaa ay bixin waayaan biilka waa waajib ahoo ilaahay subxaanahu wa tacaala nasaari inta tabartaada inaad bixisid waa wax muhiim waaya oo carruurtaada ku taageertid waa wax lagaaga baahan yahay على كل حال gabadhii wuxuu siiyey malaha waa iska dhaqaajiyey marka gabadhii baan arkay waxay tiri marka dawladda ku dacwooday dawladdii kuwii oo child maintenance-ka loo dalkan Ingiriisiga ay ku dacwootay ninkii baa la raadiyey ninkii markaan sharci kama hayso waxba kama hayso midda haddaan rabaa inaan ku baraarujiyo waxaa weeye markaad nin guursanayso ninka waa inaad sharcigiisa aad haysatid oo meel hor raacdo uu leeyahay oo waagi hore markii la isguursanayo ninka tolkiisa iyo dadkiisa iyo qaraabadiisa la dooni jiray meeshaan hadda waxaa weeye horeyaa la iska guursanayaa keliya wax reference la raadinaya wax kale ma laha marka walaalaha sharafta leh wiilka markaa waxay igu tiri laba sharci buu lahaa waa dadka Yurubta ka soo guuri Ingiriisna sharci ku lahaa markaan laba magac u kala qoran marka kuwii child maintenance-ka marka ay warsadeen ninka magaciisa iyo adresskiisa meeshuu ku nool yahay waa garan wayde sababtoo ay mar horeba dee moogta waa loo gablay gurigaa la imaadi jiray markaan waxaa weeye sidii bay ku guursatay waa iska aamintay marka khayr allah sii gabdheena Soomaali marka aaminkooda iska badan ninka marka hadda maadaama uu nin shaqaysta yahay oo nin waxaan aan garanaynin oo لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله سلاهي حداد مال في عن إيه كسي ما بيل في عن عروت سيه هدي إلهك هو عرين واحد أود السيه اللي رموت نو واحد قرنا يمها مركب واحد بس لو فهم لو المنطقة أنا لو رهين كانوا وين دولة لو تجوا لو دعويه لكن مركب أنت لو رعانا نك مركب ما لو رعانا مره مركب وحنكوير هذي نك شرعي ما كايسة يوروب تكلا maya dalkan sharciisa ma ka haysaa maya waxay ka haysa male haye wax contract oo waraaqo nikaxa la kala qortay ma jiraan waa maya marka walaashay adaa isku ciyaaraanay marka ninka min meel loo raacdaan lahayn dawladda xaqi u raadinayay markaan adaa ala kulli si loo raadinay markii oo kooban ninkii waa la helay markii dambe markaan laakiin dee sharcigiisa lahayn ilaa hadda sharcigiisa lama hayo ففهم سوما دتك لو قرابة سو هلي لكن شرعيس يعني لهين ما له راعنا مال إيدي اللي هذا ما تقان شرعيس مركو عن كلهم قوة أنا ولا شيء حتى منك الرجال لفتيز وإنه إسكجرته كانت قبل تقول شرعي سو قبلي هاي هرت كون نكاح وإن كونتراكت القروي أنا هذا مركان واحد نكاحه كونتراكت عادي أنقرة ولو لا وقضوا على صعود لا وقضوا على صعود labadaas qodob kulli TikTok-yada waa ku aragtay u malaynaya marka gabadha magaceeda aan qoro oo ninka magaciisa aan qoro oo taariikhda qoro oo maharka aan qoro oo labada markhaatiga aan qoro oo sheekha qoro oo weliga aan qoro oo la saxiixay laba qodob ay raacsan labada qodob waxa weeye aabaha waxaan ballan qaadayaa mustaqbalka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala run u irsaaqo oo wax u dhacaan inaan carruurtayda biilanayo si shariicada islaamka waafaqsan haddii amar ilaahay un mataqaana ay gabadha waxay leedahay daamir leh waxu isbedelaan anina waxaan ballan qaadayaa inaan mataqaana aan carruurta aan ninkayda ku dhibeynin oo xaq u leeyahay oo carruurtiisa markuu rabo u qaadanaya markaan qurbahan waa ka socda gabadhii lafteeda markii ninka ay kala tagaan carruurtii bay ninka ku garbaashaysa oo carruurtaada ma arki kartid wax bay leedahay moogta iyadana meeshaas ay bako marka hadda waxaan kuu sheegay gabadheena Soomaaliyeed contractadaas sheekha laftiisa ka codso waa in lagu saxeexo contractadaas waa wax markaan nafteeda oo runtii adigana ku anfacay asagana anfacay fafaan soma
wardhaxaasa gabara yani aan nikaaxay wiilkii baa markii damaanaysa aragnay wiilkii dee oo gabadha weligeed ahaa marka wuxuu weydiinay nikaaxa meequu ahaa waxaan rabaa maharka waaba hilmaam waraaqda fiiriyana marka waraaqda u soo bixi waraaqda waa tan aan ahay soo ma joogtid soo 3,500 soo maahan oo bawn markaan yani qoraalka wuxuu ku fiican yahay horta waaba cibaado alladii callama bilqalami soo ma waxaa waye waaba cibaado sidiisaba ajran waad ka helaysaa waana rikoord kiibino qofka wax kasta waa xasuusanaya hadda ninkan haddaa waxa laga qoro lahaayo maanta lama raadiyeen marka waxaan kugu waaninayaa gabadheena Soomaaliyeed ninkaada markaad guursanayso sharcigiisa oo dhan ka qaado markaas ku jecelihi weeye koobi ka qaado baasaboorkiisa ka qaado mataqaanaa sharcigiisa adreeskiisa qof aad ogtahay ha noqdo oo meel loo raacanaa leh laakiin iska guurso faraha ka qaadi lacag yaraas ku siina ama dii kale ku gableey bari marka tan kora ku dhacaysa marka gabadha waa kaas marka hadda wax ilaa hadda waxaan maqlay kulli waxa ay mataqaanaa gabadhan waxa ka soo wareegtay wax yar ilaa hadda ninka waxba kuma taageerin wafaanday Soomaaliya dadka qaraabadana si kasta loola hadlay shil ma baa ku leeyahay laakiin hadda sharcigiisan daalahay si toos ay u aadireed wafaan Soomaaliya marka intaas aan la qaybsanaya marka waxa kale in ku boorinaya de waxa way waa baaqi caadiga waad arkaysaan yaa waa naftaadu raaxee naftaada naax markaan odaygii 60 jirka waad ogeeyay dhikarka iyo sokorta iyo kaliya xanuunka wax badan ku dhaceen haddana alxamdulillah soo kamanaya oo sokortina ka baxday cholesterol wixii ka baxeen waxa soo dhan waxa uu sabab ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadiisa iyo kitaabkiisa iyo sunnada waxa soo ka baxday ina asbaabti la yimaado asbaabti socodkii biyaha badan cusbi isriidi sokor jooji baasta jooji please halka iska dhigo mataqaana iska dhigo halkaas please sometimes ago ni Soomaali baan ahay mar waa cunaa mar isa dheeraan cunaa laakiin waxaan aad u badsadaa qudaarta alxamdulillah hadda kaliya wili waa liitaan laakiin horta hoos uma dhicin aniin 2020 markii la sheegay waxa la yiraahdaa maxaa bardho waa la dhaqay kaliyaada dhaqitaan ay ku dhow yihiin bardho wafaanday Soomaaliya waa ka soo qabtay warkii oo kooban hadda marka adiin waxaan ku leeyahay exercise ku dadaal orodka ku dadaal ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saaro marka intaas aan ku soo koobiyaa aan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ku soo gudbi videogan man dalla ala khairin ka faa'ilihi laba qof saddex qof soo gudbiyay ajr adigu heshid gabdhaha Soomaaliyeedna ayagana oo masaakiinta oo qurbaha jooga laftooda ayagana u digtoonaadaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.